Asalaamu calaykum. Mid ka mid ah dagaalada ugu qaraar ayaa ka socda qaaradda Afrika, oo midka u dhexeeya dowladda Itoobiya ee uu manjaraha u haya Abiy Ahmed iyo ururka TPLF ee gobolka Tigray ka soo jeeda. Muuqaalkeena maanta waxaan oga hadlaynaa muuqaal kooban aadna u xiiso badan. Waxaan oga hadlaynaa dagaal ka socda Itoobiya, meesha ka soo bilowday iyo dhacdooyin kale. Muuqaalkan ma soo jeedi doono sidii wariynimadii, laakiin wuxuu noqon doonaa muuqaal aan ku wada sheekaysan doono. Ku soo dhawaada. Wadankan ku yaala qaaradda Afrika una dhow wadanka Soomaaliya, xuduudkan leh Soomaaliya, Djibouti, Eritrea, Suudaan. Sidoo kale waa in ogaanaa wadamada Eritrea, Soomaaliya iyo Suudaan in xiriirkooda wanaagsan in Itoobiya dagaal soo jireen oo ka dhaxeeya. Tusaale ahaan Soomaaliya 1977 dagaal ayaa dhex maray Soomaaliya, kaasoo ay ratay gobol ka mid ah Soomaaliya inay soo ceshato, inkastoo ilaa hadda ay gacanta weli ku hayso wadanka Itoobiya. Aan fiirino Suudaan waxay aad ula dagaaltamayaan xiriirkana uu ku xun yahay dhanka wabiga Niil iyo gobol ka mid ah gobolada ugu dhaqaalaha badan ee ku yaala qaaradda Afrika, kaasoo ah gobol beera ku qani ah, kaasoo ay rabaan Itoobiya in ay si awood ah kala wareegaan Suudaan. Inkastoo dagaalkooda dhowr jeer la xaliyay, laakiin ilaa hadda wax xal ah oo rasmi ah lagama gaarin. Eritrea waxaa kala dhaxay xiriir aad u xun. 1996 ayaa waxa ka dhacay dagaal wadanka Eritrea iyo Ethiopia. 1 milyan oo qof ayaa ku dhimatay sanadkaasi 2001. Dagaalkaas ayaa soo gagaboobay xiriirkii u dhexeeyay Eritrea iyo Ethiopia sidaas ayay ilaa hadda ku xun yahay. Laakiin muuqaalkan maanta waxaan oga hadli doonaa sababta keentay inuu dagaalkan ka qarxo Itoobiya. Marka hore aan fiirino tirada dadka ku nool wadanka Itoobiya. Tiradii u dambeysay waxay sheegaysaa tirkoobka laga soo qaaday wadanka Itoobiya, tirada dadka ku nool wadanka Itoobiya in ay tahay 108 milyan oo qof. 5 milyan waa Tigray, Axmaarada 20 milyan ah, Oromada 35 milyan, halka Soomaalida lagu qiyaaso 11 milyan. Inkastoo muuqaalkeena maanta aan ku soo dari doonin Soomaalida tiradeeda, maadaama ay Soomaalidu yihiin dad ka madax bannaan Itoobiya, laakiin ilaa hadda xoog iyo maqoojin lagu haysto. Markii la fiiriyo Tigrayga 5 milyan ayay ka yihiin wadanka, halka Axmaarada 20 ay ka yihiin, Oromadana 35 milyan ay ka yihiin. Itoobiya waxay ahayd boqortooyo ka hor gumaysigii Afrika intuu soo gaarin. Itoobiya ma la gumaysan ka mid maahan wadamada Afrika ee la gumaystay, laakiin kadib markii xorriyadda ay heleen wadamada Afrika oo dhan waxay noqdeen wadamo dimuqraadi ah, shacabku ay wax doortaan, madaxana la doorto. Tigrayga ayaa ah dadka ugu yar wadanka Itoobiya markii la fiiriyo qowmiyadaha ugu weyn, laakiin 27 sano ay wadanka xukumayeen. Mele Zenawi iyo Haile Selassie ayaa ah labada madax ee soo qabtay ee Tigray ah xilkaas. Mele Zenawi ayaa xilkaas soo hayay in ku dhow 15 sano, halka Haile Selassie 17 wax ku dhow u hayay. 27 sano ayay Tigrayga xukumayeen wadanka Itoobiya, laakiin Haile Selassie ayaa waxa ku kacay shacab aad u caraysan, kuwaas oo u badan Oromada, waxayna bilaabeen weeraro iyo dibadbaxyo. Haile Selassie xilkii uu iska casilay. Taariikhdu markay ahayd 2 bishii Abriil 2018 ayuu xilka qabtay Abiy Ahmed. Dr. Abiy Ahmed mid ku soo koray dagaalo iyo Tigrayga oo wadanka xukumi jiray si doona ka yeelaa jireen. Tigraygu waxay dhaheen waa inaan u dhiibnaa wiilkan daayar xilka, wuxuuna ka soo jeedaa qowmiyadda Oromada, si ay noogu noqoto daah aan gadaal ka xukunno. Maxaa yeelay waxay rabeen Tigrayga in ay nin Oromo ah xilka u magacaabaan, laakiin waxay dhahaan uu aqbalo. Laakiin siday u maleynayeen may noqon, oo lambar qaldan ay isku dhufsadeen. Abiy Ahmed isla markii wuxuu bilaabay siyaasad furfuran, inkastoo Itoobiya siyaasad furfuran lagu aqoonin.
isla markii wuxuu bilaabay in uu wadamadii xiriirka xun kala dhaxeeyay uu la heshiiyo. Soomaaliya ayuu yimid, heshiis ayuu la galay. Eritrea oo xiriirkooda aad u xumaa ayuu tagay, wuxuuna la galay heshiis, wuxuuna siiyey dhul ay 30 sano Ethiopia haysatay. isla markii Tigreega ayaa arrintaas aad uga xanaaqay, waxayna bilaabeen Tigreega inay cadaawad u qaadaan Abiy Ahmed. Abiy Ahmed ayaa 2020kii wuxuu ku guuleystay biladda dunida ugu qaalisan ee Nobel Peace Prize, wuxuuna ka hantay in uu dhexdhexaadiyay wadamo badan oo khilaafaadkan kala dhaxeeyay, sidoo kale in uu fuliyay amaro ka soo baxay wadamada Yurub. Maraykanka aad ayuu u ilaalsaday Ethiopia, waana saaxiibkiisa koowaad ee qaaradda Afrika. Ma ogola in ay burburto Ethiopia. dib aan ugu laabana dhacdooyinka Ethiopia. Tigreega ayaa waxay sheegeen inay aqoonsaneen gabi ahaanba dowladda Abiy Ahmed. Abiy Ahmed ayaa wuxuu sheegay in doorashada ay dib u dhacayso sababo jira coronavirus, laakiin Tigreegi waxay sheegeen inay doorashada qabsan doonaan. isla markiiba hanjabaad ayaa waxay ka tibin Abiy Ahmed, wuxuuna sheegay inuu cagta mari doono Tigreega iyo TPLF, laakiin way ka dhig adeegeen, waxayna qabseen doorashadoodii. isla markiiba Abiy Ahmed wuxuu qaaday tillaabooyin, wuxuu ka jaray wax kasta oo ganacsi ah oo kala dhaxeeya Addis Ababa, wuxuuna u sheegay in uu weerar doono gobolka Tigreega. 11 bishii 11 2020kii ayuu wuxuu ku bilaabay weerarkan ayaa wuxuu noqday mid aad loo xiiseeyay, maxaa yeelay Tigreega ayaa waxaa lagu tilmaamaa qowmiyadaha ugu awoodda badan qaaradda Afrika hadda tan la joogo, laakiin si loo maleynay may noqon. weerarkii oo 4 bilood kaliya socda waxay dowladda Ethiopia ku awood badnaatay weerarkii iyo dagaalkii. waxay la wareegtay magaalada caasimadda Mekelle, sidoo kale gabi ahaanba waxay la wareegtay gobolka Tigreega. hay'adaha u dooda xuquuqda bini'aadanka ayaa waxay sheegeen in markay ciidamada military halkaas ay qabsadeen ay ka suubiyeen ficilo aad u xun, kuwaas ay ku beegsanayaan dadka Tigreega ee shacabka. kufsi iyo dilal kas ah ayay geysteen ayaa la yiri si warbixintaas lagu sheegay. Abiy Ahmed wuxuu sheegay in uu gabi ahaanba la wareegay gobolka Tigreega, laakiin 3 bilood oo dambeysay dib ayay u soo rogaal celiyeen TPLF, waxayna la wareegeen gabi ahaanba gobolkii awoodda looga qaatay. dadka qaar ayaa waxay ku tilmaamaan in markii hore Tigreega laga adkaan, laakiin xeelad military ay ka wateen. 3 bilood ugu dambeysay Tigreega iyo kooxda hogaaminaysa TPLF ayaa la wareegay gabi ahaanba gobolkii, waxayna awood u sheegteen ciidamada militariga ee Ethiopia. Ethiopia ayaa waxay sheegtay in ay dib u qabsan doonto gobolka Tigreega, laakiin Tigreega ayaa waxay suubiyeen inay xitaa qabsadeen gobolo ka mid ah gobolka Axmaarada iyo Canfarta. sidoo kale hadda aan muuqaalkan duwayno waxay sheegeen in 40 kilomitir u soo jiraan magaalada Addis Ababa ee caasimadda Ethiopia. sidoo kale Tigreega waxaa gacan siinaya wadanka Maraykanka si aan ognahay dhamaanteen. sidoo kale Tigreega waxaa gacan siinaya kuwa ka mid ah kooxaha Oromada oo ka soo horjeeda Abiy Ahmed, maadaama Abiy Ahmed uu ka soo jeeda qowmiyadda Oromada, laakiin mar kastaba wuxuu taageero siiyaa Axmaarada. 3 qowmiyadna waxay isku yihiin baasiin iyo dad, midkood ma rabo kan kale inuu horumarka gaaro. laakiin marka la fiiriyo Tigreega 27 sano ee xilka hayeen waxay ka macaasheen wadanka. dhaqaalaha u badan Ethiopia wuxuu ka soo baxaa Tigreega,
hubka ugu badan Ethiopia wuxuu yaalaa Tigreega, laakiin goboladan Oromada iyo Axmaarada waa gobol iska liito si Soomaalida oo kale. Abiy Ahmed ayaa hadda wuxuu sheegayaa inuu dagaal qaadi doono xilli beeshiisa mareegtada ku leeyahay Facebooka uu soo dhigay qoraal u dhignaa hubka qaata oo ka difaacda cadawga caasimadda Addis Ababa. isla markiiba Facebook ayaa wuxuu ka saaray hawada accountigii Abiy Ahmed iyo qoraalkaasba. Ruushka ayaa wuxuu sheegay inuu taageero military sii doono dowladda Abiy Ahmed uuna ku fiirsan doonin haddii ay Addis Ababa ay soo galaan TPLF. sababta ay Ruushka gacanta u siinayaan ayaa waxay tahay inuu Abiy Ahmed la soo saxiixday heshiis military wadanka Ruushka. Turkiga ayaa waxay sheegeen ayagu inay sii doonaan hub kasta nooc doon u ahaadee. dalalka qaar wararka qaar ayaa waxay sheegayaan in dowladda Turkiga ay sii doonto Ethiopia diyaarad kamid ah diyaaradaheeda caalamiga Bayraktar 2, laakiin wararka qaar ayaa beeninaya maadaama ay Turkiga ay diyaaradahaas si kaftana ay u dhiibin. Bayraktar 2 waa mid kamid ah diyaaradaha ugu awoodda badan caalamka hadda, waan ogeyn waxay ka suubiyeen Armenia. muuqaalkeena maanta intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa, waxaana kusoo koobaynaa xogtii u dambeysay wadanka Ethiopia. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.